السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولاش نعمة طريق أيضا كل ما عليهم ولاكسن مير والبدون ذيك الشوكتان هذي ما هبين كنت هاي هبين ولاكسن لما أنتوا وايد سلامي هالكم حنفرين وقدر يا سلانت اللي رحضوا مع الصومالي سلانت اللي مع الصومالي بريحن سوشيال ميديا في المكان حوده وحويان مع الصومالي يا ماما مليون ومحو dagaalkoodu ka bilaabmay maama Soomaali waxay ku gaftay maama Soomaali waxay ku gaftay oo meel kaga dhacday oo sharaftiisii Sheikh Imaam Shakiib ay meel kaga dhacday sidayna ognahayba culimadu dadka kale la mid maaha ay ka sharaf badan yihiin dadka kale yani ayadoo bilaadan leeyahay oo Ilaahay bilaadanka karaameeyay haddana imaamku iyo sheekhyadu waxay xambaarsan yihiin cilmi maaha in sharaftooda meel laga dhaco kaliib soo duubo gabadhiisa uu kaga cabanayay way la booday waxaan ahayn bay ka sheegtay waxay tiri dumarka ayuu dahabka ka aruurin jiray meelahaas uu geyn jiray guriyo ku soo dhisan jiray cudurka waxa uu keenayna waa dadka uu waxa ka aruurin jiray oo oran jiray dad baan caawinaya Filibiin buu tagi jiray naaga ka soo guursan jiray naaga bilaash ayuu ku arki jiray waxay tiri ayuu ku soo guursan jiray wax aad u badan bay ka sheegtay oo beena oo ay sharaftiisa iyadoo maamo weyna tahay ay sharaftiisa dhulka kula gashay Imaam Shakiib Sheikh Imaam Shakiib waxa weeyaan intii kuma eekaana haddana wax kale soo qaado wax kale ka sheegtay waan daawaday fiidiyodeeda anigu si xun waxay tiri waa tuug waxay tiri gaarigiibu uu ka qaadi gaaray gabadhiisa caruurtii gaarigiibu ka qaadi gaaray aabihii baa uga reebay gurigiibu rabaa inuu ka saaro wax aad u badan ayay ka sheegtay oo beena sheekh sharaftiisa dhulka la gashay islaanta maama Soomaaliya leeyahay ma doonay maama Soomaaliya inaan ku sii dheeraado because waa hooyada kale laakiin maama Soomaaliya wax aad u xun bay samaysay maama Soomaaliya caruurteeda kamay soo qaadin Sheikh Shakiib caruurteeda kale weeyaan laakiin kamay soo qaadin ee maama Soomaaliya si xun bay Sheikh Shakiib u gashay taasna tuliga filimay ahayn waxaan filayaa dad badan oo kale oo ay ka sheekaysan inay dulmiday oo looma ooyaan laakiin Sheikh Shakiib looma ooyaan maaha sheekhyadana in la ilaaliyo weeyaan sababtoo ah dadka kale way ka sharaf badan yihiin sababtu waxay tahay la mid maaha alla karaameeyay cilmiga Ilaahay oo dhan bay madaxa ku sitaan marka sheekhyada in la ilaaliyo way tahay laakiin maama Soomaaliya raali gelin bay soo bixisay goorma maama Soomaaliya raali gelinta soo bixisay ومركي ماما مليون كسو بودي أي بالله كرفتي إما كواحين أغنهاي ماما مليون يا ماما صومالي إنيس هايستان لكن ماما مليون يا ماما صومالي محيسكو هايستان تيبا قرطرن ماما صومالي قرطرن ماما صومالي محاشيخ أوجي ماما صومالي غيرها إسقو محاد حكيليي ماما صومالي أيضا ميلا نولي قرقو ضمي كون نولي ما فاملي بيسكو دوبا وامي gabadhii la qabay miyay tahay miyay la dhalatay waamay mi isu dhawiin waamay maxaa u geey maama Soomaaliya sheekh maxaa u geey maama Soomaaliya aad bay u khaldan tahay waxaan ku leeyahay maama Soomaaliya jooji waxaad wadid iyo fidmada YouTube ka dhex wadid adigoo inta leeg xishood dadka caruuraha galaaleed ka xishood caruurta saad u jeceshay waynaad u jeclaata laakiin qof saaran oo xanuunsanaya inaad dulmidid maaha مسكين أديك كوما هي قالوا مسكين ويحي ما فهمتين مركا كحشون ماما مليون يا ماما صومالية محي إمك إسكو هايستان أرنتاس إسكو هايستان لكن ماما مليون عاديات بوس أحسن تحي بالها إنك رفتو ويتهاي ناكتها صوبتو أم حاو جاي شيخة حاو جاي ماما مليون عمرك قالها ديري عادي قال لها تشبيو صوبتو أنك كل شرنا صوبتو أوحي dadka dulma soo doonto baalaha saa uga rif baalaha saasad uga riftaa ilaahay baa geesiyad ka dhigay waxa weeye maama milyan naagaha soo caayayaan waxa maama milyan kama qaali kartiin maama milyan waa libaaxad adduunka joogta maama milyan hadii qabiilkaada ku faantana Allah ka dhigay ninna kama bedeli karo adbood ku faani kartaa waxaad ka dhalatay sababtoo ah ka dhashay qof walba inuu isku karsoonaado laakiin maama milyan anu taan mid kaliya anu sheegay waxay tahay maama milyan inaanay reerka naagtaasi ka dhalatay maama Soomaaliya leeyahay inaanay reerka caayin oo madaxa saaran وني هيرك عايم أنا وشيء بس ناكتس كعل صوته هو كاجر درنت صوته هو كهبارت عذر هذا قوم بيكوش يعطي مرك إسكعلي أنا قا كله إسكعلي وحيك صوت أنت بالها كرف إسكعلي مع مليون هلا قال له
ما مليون واللي بحد دونك جوجتا عندنا waxba kama qaadi karto ma milyan anaga la jirna sababtoo ah maxay ku soo doonatay sheekha maxay ku soo doonatay maama Soomaaliya maxay ku soo doonatay intay halkaas soo fadhiisatay waxay doonta ka sheegtay ay caayday ay ku tiri tuug baa tahay haday runka tahay marka hore maxay u raali gelin wayday ilaawati markay maama milyan baalaha ka riftay maama milyan waa libaxada adduunka joogta markay baalaha ka riftay waa tii raali gelisay marka horena waa tii caaysay muxuu yahay farqiga u dhaxeeya muxuu yahay يعني ما مليون بك بقتي ها وسدا ما Soomaaliya ما مليون بك بقتي لكن ما Soomaaliya waxa la dadka dulman iskaga leexo dadka ila xanuunsan iskaga leexo dadka sariiraha saaran iskaga leexo laakiin waxa la dagaalami kartaa dad adduunka joogo saan oo kale soo hadlaya oo caafimaad qaba ay la dagaalami kartaa laakiin qof miskiina oo cabanaayo oo kale qolkii waxa la igu tuuray dadka dhimanaya waxba ma haysto qof caawiye ma haysto biyo wax la igu soo shubo ma haysto biyo wax soo siiyo ma haysto naxariis dirina markaad ku wiirsanaysid naxariista alla ka qaadi waa naxariis darantaa wallahi waa naxariis daranta naxariis milihi maamuli way ka qalbi wanaagsan tahay maamuli way ka geysan tahay maamuli way ka fiican tahay maamuli way ka fiican tahay qofowna maamuli diinta kama xigtay because of maamuli qofna kuma waran karti gaal baa tahay alla xaqiiqo maamuli waa gabar muslimada ogtihiin waxaan sheegayaa in arinku saas u jira waxa weeyaan wixii feedback xaq hoose igu reeb laakiin dadka ila dulmiyo maaha maama Soomaaliyeed dadka dulmiyo maaha video hada garanaysi meel loo mariyo maama Soomaaliyeed meelaha u mariyo videoga meelaha u mariyo waxaan kaloo aan ku darayaa idin sheegayaa Suldaan Seeraar showgiisa ugu horeeyay wuxuu ku dhigtay Denmark showgiisa labaadna wuxuu ku dhigtay Norway si fiican baa loogu qaban qaabiyay si fiican baan u dhacay horta sidaynu ognahay fanaanimadu khayr ma leh laakiin haddana dawlad aan fanaan lahayn dawlad maaha fanaaniintu waxay ka turjumayaan dhaqanka iyo hidaha iyo suugaanta waxa weeyaa meeshan Jarmalka leeyahay dadka badan ee Jarmalka iskugu tagay badankoodu dadka waa cunsuriyeen dadka way cunsurideen loomana baahna waxa soo kale fanaaniinta waxaan u sheegay in ka waanto ma Jarmalka inay isku tagaan sababtoo ah waa la dili gaaray Suldaan Seeraar maxaa lagu dilay muxuu geystay marka la dilay muxuu geystay yani wallahi waxaas ma wanaagsana waxaan u sheegay inamada yaryar Jarmalka jooga iyo odayaasha yaryar Jarmalka jooga ama koreyaasha inay dadka ka leexdaan oo dadka maxay ku dilayaan يعني قبيالد waxaa ka waantooba waxaas waa ceeb عليك والله waxaas xaragaad u haystaan laakiin waa ceeb waxaas qof ilaa intaas idin soo socday oo ilaa Afrika idin soo socday oo walaalkiina oo Soomaaliya ayaad wixii si kan salaysaan oo qabyaaladeenaysan oo dilaysaan de runtu waa sida oo waxaad idul dhigaysaan lacag aanu karin dadka joojiya waxaas fanaaniintuna fanaaniin isku tagi farxiyo ka yara ya Allah kaga badbaadin ogeyn Suldaan Seeraar baa hadduu habeenkii ima laabay waa la dili lahaa maxaa loo sheeganay in kare miskiinka ceeb عليك waxaas waxa ka waantooba waxaan ii sheegayaa channelkayga haddaad daawataan subscribe ii saara oo like ii saara oo share ii saara waan idin salaamayaa